taliska guud ee ciidamada booliiska Soomaaliland ayaa maanta waxay markii ugu horeysay ka hadleen xaalig lagula kacay wariye Cabdimaalik Muuse Coldon iyo Qoraa Maxamed Baashe oo ah agaasimaha guud ee TV-ga caalamiga Star TV. afayeenka ciidamada booliiska Soomaaliland gaashaanle sare Faysal Xiisi Cilmi oo maanta warbaahinta kula hadlay xarunta taliska guud ee ciidamada booliiska. waa kan afayeenka ciidamada booliiska Soomaaliland Faysal Xiisi Cilmi oo warbaahinta kula hadlay xarunta taliska guud ee ciidamada booliiska Soomaaliland kan warbixiyay xaligooda. bismillaahir rahmaanir rahiim. marka hore ilaahay waa mahadle marka xigtana halkan waxaan isku yeernay inaan kor u bixino nimanka xidhan dambigooda. ciidanka booliisku waxay xidheen eedeysane Maxamed Baashe Xaaji Xasan oo ah agaasimaha Star TV kaas oo lagu eedeeyo inuu ku kacay falal ah kicin dadweyne خلق قليل نبت قليل دهو إسلام مركز لك بحي مهنة دي صحافة دا جورناليسم إيتيكس كدي مركي وكهرين مشروع عملات بالبلاء أو أي الله كلا كرم الوكيل الله يقول سوى أي عد أغلبية كواسعين الإسراحس أو قبل قابل أي شر لو قيمين أي وراقه لو كعين أي دولة الاستفسار أما بروفيشن أي رقمتي وأنا الحرية ما هي إنه قرار كاسي وحاش قيس هاي صحافة الشرع بين هاي شرعية أي لا هاي إنه خطر عبص الله دمج عقابات بكرة الناس كيس كيس ولا بارية سيدك دقيقة واحد لو بدينا محكمة ده يحرر فيها ودولة شو كذا ciidanka booliisku waxay 15 bishii labaad 2017 waxay gacanta ku soo dhigeen eedeysane Cabdimaalik Muuse Coldon kaasi oo lagu eedeeyay inuu ka hor yimid jiritaanka qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaasna uu faafinayay warar been ah oo aan sariiraad online eedeysanahaasi wuxuu ku xadgudbay قولك لا بقول صدر تريتوي هاي عقابتك أنا مو أقول كلا بوليسان لكاس هو هذا صفيا لكاس هو اللي خلته بسه وكوري سيرتاني سومالنا وحال الوقت فرقة وسوي مرق موجود عضوة والله قد أولها بلا بالشيء يسكعته تلفزيون مركب الله بهذا وحال نور كيف دولا محمد داود دولا. والسلام عليكم ورحمة الله.